وريه محمد عبدي حسن بوش oo ka howlgala shabakada wararka Ramas News iyo telefishinka Royal TV iyo wariye Xasan Cumar Xasan oo ka howlgala wargeyska ogaale ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa maalintii saddexaad ku xidhan xarunta CID ee magaalada Hargeysa kadib markii maalintii Axad ay ciidamada CID du xabsiga u taxaabeen iyagoo ku guda jira hawl maalmeedkooda shaqo. labadan wariye ayaa lagu eedeynayaa inay qoreen warar ay xukuumaddu ku sheegtay inaan isla yaraatoona lahayn taasoo keentay in maalinta saddexaad oo hoydaan xarunta CID-da iyagoo ay jiraan warar sheegaya in maxkamaddu u jartay 7 cisho rumaana. ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solsha ayaa iyaguna cambaareeyay xadhigga labadan wariye iyagoo xukuumadda ugu baaqay in si degdeg ah u soo deyso. sidoo kale wariyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ayaa iyaguna ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay si degdeg ah xorriyadooda ugu soo celiso labadan suxufi waxaana tilmaameen in haddii ay jiraan wax dambi ah oo ay galeen maxkamadda si degdeg ah loo horgeeyo.